إلى سوب فستان ما هناك مصر عناية سر بدن بها والله سر بدن بها والله إن أنا حالة سنة سيد الشلبي أنا أسوي جيدا وجهي كجرس سيد الشلبي أنا أسوي جيدا سودو هذا سر بدن بها يعني ورجي فكين سر بربعين فكيه مركز سودو هذا horta waxaan dhageysanayna hal waxa yiri sarba inaan dhageysano wadaadada maxay ka qabtaa mooryaanta muqdisho baa dhageysanayna mooryaanta wadaadada maxay ka qabtaa ila dhageysto waxa yiriisa ka bacdi waxaan rabaa inaan caaw sir fakiya rabaa oo al-shabaab iyo muqdisho ku saabsan kaliya wallahi waxa og inaan been sheegin waxa og madaxweynaha ra'iisul wasaaraha ciidanka niisa iyo dhowr nin oo madaxa Soomaaliya kamid ah beesha caalamka إيشي كودا أو قابل سن أرمها دبدة سياسة وقابل سبب والله إني سقف كل سوماليا إني سوقين عاو حربينا شيء أو كسب سن مقدشو سودو هذا سودو هذا شرقرية مركب الرئيس أنت الموضوع سوق قلين واحد نيجي أصلا هنا شرقرسان عند جيسنو موريانتا محي نمانك وده ده ما أنت مقصود شو كير هذين إلى اللي جيست بال la sheegay in bari dadka Soomaalida ay lagu barlaxawsanayo inay soo baxaan oo maartay aan ahayn mudaharad fasax rasmi la siiyay dawladuna ay maartay raali ka tahay dalkuna oo dan ugu jirto ayaan rabaa diin ahaan wax culimadu ka tirina sheego walaalayaal in dawlad sharci ah oo dalka si nidaam ku maamusha in lagu soo baxo oo laga hor yimaado oo la muujiyo shicaaraad ama muuqaalo diidma ah dawladdaas looga hor imaanayo iyo in dad siyaasiyiina oo dawladdaas mucaaradaya ay ka dhigtaan shacabka ay gabaad uga dhigtaan dana ay leeyihiin siyaasadeed ma banaano diin ahaan دار علم شرقرية والله عاو سر بنها بالله سر وين بنها مقعيان هيا شرقرية الشيخ مارت ابن باز علماء واوينيد مجامع الفقهية waxa ay ku xireen shuruud asaasi ah mudaharaadka asalkiisa hadii mudaharaad silmi ay oo yahay oo waxyaab nabad ku dhacaya shuruud ayaa lagu xiray lix ah oo culimada islaamku ay ku xireen طبعا mudaharaadka biriil rabaa in dad macsan mid kama waafaqsan shuruudaas diinta culimada islaamku ay ku xireen marka ugu horeysa waxa shardi ah in fasax looga qaato dawladda sharciga markaas jirta oo iyadoo ay ogashahay oo iyadoo ay fasaxdo mudaharaadka in la soo baxo shardigaas waa shardi asaasi laba waxa shardi asagana in socodka iyo wadooyinka maritaankooda uusan carqalad ku noqon oo goob loogu talagalo diintu wadaadka ka hadla wuxuu ku saabsantaa mooryaanta muqdisho iyo banaanbaxa biri ka dhacaya la socda gaar kaliya oo ka dhaco sheergareeyo ayna dawladdu xidday laakiin hadii wadooyinka oo carqaladeynayo oo socodkii iyo dadkii iyo u dhibaato gelinayo waxa way fasaad u noqonaya mana banaano saddex waxa ah in uusan xambaarsanayn shicaaraad ama muuqaalo ama halku dhigyo liddi ku ah dawladda ama lagu cambaareynayo ama lagu xumaynayo wajigeeda taasoo ah iyaduna arrin xun ah oo nabigu sallallahu alayhi wasallam oo aad nooga digay laanahu xukaamta si sharciya dalku maamulaysa in laga hor yimaado oo la caayo oo la cambaaro wadaadka markuu dhamaado waxaan rabaa inaan ka hadlo saddex nin oo dhulbaanta ah oo bahar samaa oo u qaabilsan Soomaaliland iyo isaaq muqdisho in la qarxiyo ayaan hayaa dadka muqdisho jecel dadka al-shabaabka nacib ee daacad ka tahay magacyadooda meesha degan yihiin iyo waxay yihiin bacaawani haya sheer gareeya live kana kuma sii jiraayo meesha kuma sii jiri doono waa ka qaadi doonaa sheer gareeya wallahi ninka dan tahay ana xanuunsan baan soo galay inta nabar baa iga yaala inta waxa iga yaala waxay igu dhacday intaas ma seexanin 24 hours baa xal soo jeeday waliga habeen inta soo jeeday maalin kuma darin ma live inta noolaa 4 in the morning bas hadaan daaho waliba soo jeedaa waxaan inta raadinay oo shacabka laga hor keeno xaraan diin ahaan ma banaano qodobka afraadna waxa waaye in arrintaas iyada ah aysan amniga waxyeelin oo dalka ay ka dhacayso oo yahay dal amnigiisu 100% uu sugan yahay oo aysan imaan karin in laga faa'iideysto oo khatar amni ay timaado Soomaaliya maanta waa ogna wadciga amniga wali magaalada Muqdisho meesha uu marayo dawladda ayaa juhdi badan ku bixinaysa si amniga loo ilaalin lahaa maanta dana ugu dambeysay wada ogeedeen baawur ayaa lagu xiray qaraxyo saa umada dhibaato lagu gaarsiinayay waxa lagu guuleystay bariyahan in baawurtii mutafajiraad ku buuxay oo dadka lagu halakeenay la hor istaago iyadoo ciidanka booliisku juhdi badan ay bixiyeen
oo wadooyinkii cadowga laga carqaladeeyay inay soo maraan marka arrintaas iyada marka xaalad noocaas iyadoo lagu jiro amni ah oo ka hortag lagu jiro khataraha bulshada ku dhacaya in mudaaharaad la abaabulo oo weliba maaragtay xambaarsan waxyaaba dowladdii dadka maaragtay looga horkeenayo waa xaaraan arrintaas u bannaana marka shardigaasna waa shardiga afaraad shardiga sanaadna waxaa waaye oo lagu xiro oo shardi ah in dalka mudaaharaadka laga sameynayo uusan ogolayn iyo nidaamkii siyaasiga qaab wax lagu cabiri karo oo qofka ra'yi uu ku dhiibi karo inuusan ogolayn markaas hadduu saas yahay waxaa waaye waxaa laga yaabaa in la cabiro ra'yi dadku usoo baxaan waxa weeye dhibaato ma lahaateen laakiin dowladda maanta noo dhisan oo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo uu madaxweynaha ka yahay wasaare xasan cali khayr wasaare ka yahay waxaan ognahay dastuurkay ku dhisan tahay kuwii ka horreeyana xataa ay ku dhisnaayeen waxa weeyaan in dadku ay cabiro karaan ra'yigooda idaacadaha iyo tvyaasha iyo sirnabada iyagoon carqalado samayn ay tigi karaan qofka cabasho qaba uu si cad u sheegi karo wadaadka intaasaan kusoo gabagabaynaynaa sirta aan soo helay waxaan ka soo helay qof u shaqeeya ciidanka niisa ee ka dhisan muqdisho ilaah baa iga sarra inaan been ku sheegayn beenna ku dari doonan sida runta uu iisoo gudbiyey ciidanka niisa sirta faraha ku haya 2 beri 3 beri iyo maalin ka bacdi waa maqal doontaan warkaa maanta nii sheego warka suyaan igu sheegaya dadka muqdisho qarxiya sida loo qarxiyo meelaha laga imaado dadka kale yihiin ayaa rabaa inaan nii sheego waa dadka qaarkiis aan dadka dhan liima soo sheegin 3 nin baa la soo sheegay 3 nin waa dhulbaahante waa bahar same waxay sameeyaan magacyadooda meesha degan yihiin si u socdaan reerahooda walaalahooda inta waa la soo qoray nin ka midana waxa la soo xirayaa maanta waa la soo xiraayay maanta lama hadlin maanta la soo xiraayay xalal la soo gudbiyay maadaama sirta gacanta lagu soo dhigayay berina BBC lagu soo deyn doonaa waa arki doontaan saaxiibkay aad baa u mahadsantahay daahir cilmi maxamed aad baa u mahadsantahay intiin dadka sheergarasho waa mahadsantihiin magaciina u jeeda aad baa u mahadsantihiin sirta baa marka nii sheegayaa inaan xabad bee ka sheegaynin waa sida ciidanka nisa ay gacanta ugu hayso midda ugu horeysa oo liisoo sheegay horta waxaa waaye oo fili Soomaaliya qofka ciidanka nisa u shaqeeyo iisoo sheegay wuxuu dhahay mooryaantii muqdisho ee waday banaanbaxa oo siyaasiyiinta ahaa fili Soomaaliya iyo hargeysa waxay iska soo dhiibeen farmaajo isku dhiibeen intooda badan iyo ganacsato iyo odayaal ka soo jeeda beesha hawiye oo u ahaayeen niman mooryaana waxaa laga yaabaa banaanbaxa inuu dhici waayo nimankaasoo soo ogaaday markay la xirteen al-shabaab waa si halka lagu dhigay waa ciidanka nisa qof ka tirsan waaye markay soo ogaadeen al-shabaab dadka la shaqeey iyo dadka qarxiya iyo laftigooda markii lala kulmaayo kuwa ka mid ah in la dilo liiskaas ba nin la shiraayay jeebkiisa laga helay jaagadu meesha ku iloobay ayagii baa kala cararay fili Soomaaliya galeen ay magan u galeen markii lala waraysto lala shaqeeyo saaxiib la iskala dhigo laftigooda in la dilo kuwii la wareysanayo oo siyaasiyiinta ku jiray mooryaanta mise beesha way ka soo jeeday waxayna isku dhiibeen caaw fili Soomaaliya waa hadalka siduu yahay berri waxa laga yaabaa inuu dhici waayo banaanbaxa maadaama intaas u dhacday al-shabaab ballantay la galeen ay uga baxeen waa niman ganacsiyada odayaal iyo siyaasiyiin beesha hawiye u dhashay waa kuwa aan u aqaano nimanka mooryaanta fili Soomaaliya waa caawadan hadda ku jirno bay tageen waxa la soo sheegay sidoo kale mudaharaadka nimankii qaqaabinayay intooda badan waxa laga yaabaa inay hadlaan subax markuu waagu bariyo intaas mudaharaad ku dhicin sala subax inay ku dhawaaqaan mudaharaadka inay joojiyeen ayaguna wadeen haddana ka baxeen maadaama al-shabaab ay soo ogaadeen nimankay yihiin sir badan ay soo heleen ay soo ogeen sirta al-shabaab yaa ka dambeeya ee muqdisho u qarxiya Soomaaliland u jooga waa meeshan raba inaan ka sheekeeyo Soomaaliland 3 nin baa u joogta oo 3 yihiin dhulbaahante 3 yihiin bahar same ninka ugu weyn magaciisa waa nii sheegi doonaa ninka ugu weyn Sacuudigu degan yahay wuxuu iska leeyahay gaaska iyo petroleumka Soomaaliland lagu gado iyo muqdisho maadaama uu yahay nin dhulbaahante aan laga shakinaynin waxay nimanka siyaasiyiinta ay saaqo kula hadleen in uu u fududeeyo qaraxyada asaga laga rabo lacagna la siiyo gaaskiisana oo ku gato Soomaaliland Sacuudigu degan yahay waa nin lacag leh asaga iyo nin kale oo Soomaali Kiyaatiya ba waxay hubka ka iibiyaan oo hubka ka soo iibiyaan Iiraan iyo Yaman East Africa oo dhan bay u qaabilsan yihiin ninka Kenya jooga magaciisa waxa la yiraahdaa Murala la yiraahdaa Kenya degan yahay gaaska iyo petroleumka bay wada leeyihiin ninka Soomaaliga ee dhulbaahantaha ee Sacuudiga degan ee Soomaaliland u qaabilsan inuu hubka u soo gado al-shabaabna u soo gacan geliyo
maadaama uu yahay nin dhulbaahanta oo laga shakinaynin maadaama uu nin isaaqa waa ninka muqdisho qarxiya hubka soo geliya muqdisho kuna soo geliyo maadaama uu leeyahay nin lacag la yahay gaaska ugu badan muqdisho uu ka iibsaday Hargeysa lagana shakinaynin magaciisa waxa la yiraahdaa Dr. Cabdinaasir Cali Dheere la yiraahdaa waa dhulbaahante waa bahar same saddex diyaaradood oo huba oo qayaad lagu laayay ninkan bahar same baa qaaday waxa loo dhiibay hubka nin Hargeysa u fadhiya asagana bahar sama oo u qaabilsan ogaadeniya iyo gari kombe laftigooda hubka iskugu dhiiba baa hubka loo dhiibay saddex diyaaradood oo huba loo dhiibay waa meeshii lagu baabinayo hubkii qayaad lagu baabinayo waxa ka dambeysay qayaad in la dilo oo dhulbaanta la isku dilo Somaliland nimanka bahar same oo lacagta Sacuudiga fadhiya ayaa loo dhiibay waa ninka muqdisho qarxiya ninba u fadhiya muqdisho waa nin la yaqaano wuxuu yahay gacan yaraha ninka dhulbaanta Sacuudiga jooga oo u qaabilsan muqdisho in la qarxiyo oo Somaliland u jooga oo Somaliland soo adeegato nimanka dhulbaanta waa ku shubo maadaama ay niman daarooda oo isaaq ahayn lagama shakinayo Somaliland waa nimanka u qaabilsan waa meesha ugu weyn ee muqdisho Somaliland ay ka weerarto marka dhinaca shabaab noqotay ay gacanta ku leedahay والله مر لا اسبدي niman daarada oo dhulbaanta ah baa u shaqeynay niman asaagooda isaaqa oo qarxinay wiil Soomaaliyeed oo muqdisho degan ninka muqdisho jooga caawa hadii la dilo aan leeyma soo raacdo dhulbaanto magaciisa sheegaya waa qof la yaqaano oo wallahi waa ninka hubka u qaabilsan Somaliland al-shabaab hubka uga soo dejiyay degada muqdisho lagana shakin containerka u soo dega nimanka waa la aaminsan yahay gas baa u soo dega lacag bay leeyihiin adduunka kala wadaan lama hadlo waxoodana lama baaro muqdisho gacan bire ku haystaan muqdisho gacan bire ku haystaan wax la hadli kara ma laha qalabkooda lama celiyo dawladdu ma baarto ciidanka niisa qofka ii soo warramay anagu ma baaro ilaahay maana baari jirin buu ilaahay laakiin hadda waa la ogaaday dawladdu ku dab jirtaa waa ninkii darad hubka muqdisho laga dhoofiyay lagu qabanay buuraha galgale ee daacis loo waday ninkan baa gudbiyay waxaana soo iibiyay ninka dhulbaanta ee bahar same waxa la soo marsiiyay Kenya ninka jooga ninkan muqdisho jooga loo soo dhiibay bahar same halkaas laga gudbiyay waxa la ogaaday markay Puntland u sii maray ciidanka niisa ee muqdisho jooga dowladda shaqeeya baa soo ogaatay oo qabatay wayna ogaadaan ninka ugu lacagta badan ee dhulbaahantaha ee gaaska petroleumka gaaska loo yaqaan ka shaqeystay muqdisho business ugu badan leh Cabdinaasir Cali Dheere ayaa qarxiya muqdisho Somaliland u fadhiya hadhow maana ogeyn hal yiraahdo ninka u fadhiya muqdisho ay dadka muqdisho laayo oo al-shabaab u qaabilsan Somaliland oo aan laga shakin waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Qarshof Cali Geela la yiraahdaa waa bahar sama وأنا هرتيه dhulbaahanta bahar sama Cabdiraxmaan Qarshof Cali Geela lidaha ninka Hargeysa u fadhiyo oo bahar sama asagana oo u qaabilsan in dhulbaahanta la isku diro oo hubka isku dhiiba oo sidaas oo kale asagana gariga hubkii lagu leeynay ogaadeen ka isku dhiibay waxa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Cadaash waa bahar sama magaci saddexan lima soo sheegin Cabdiraxmaan Cadaash baa lidaha Hargeysa jooga mucaaradka Ethiopia markii la leeynay gariga maqlisen waa ninkii hubka Hargeysa uga soo digay berbera al-shabaab u qaabilsanaa iyo Somaliland iyo Dahabshiil hubka isku dhiibayo mucaaradka Ethiopia oo gariga la leeynay waa maqashay balqiya bila ka hor saddexan waa saddexda u qaabilsan Somaliland in al-shabaabka muqdisho lagu hayo lagu qarxiyo waa ninka uu lacagta badan ee dhulbaahante Sacuudigu ku dhunta Soomaaliya ma imaado gaaska ugu badan Hargeysa loogu gadayo muqdisho Hargeysa wixii free baa looga dhigay maadaama hawsha u fuliyo u fududeeyo laamaha amniga sirdoonka Soomaaliya ee niisa soo ogaatay waa lagu daba jiraa hadaa warka maqli weydaan wuxuu jaamac geeso jooga wallahi in socdo ka jirin
inaan waxdaba la soo farsanaynin saddexda nin ee dhulbaantaha baa waxay u qaabilsan yihiin Somaliland inay muqdisho loo qarxiyo inay ictiraaf ku helaan in ayaga laga shakinin aan la ogaanaynin nimankii mooryaanta ahaa oo fiqi ku jiro ninka ugu weyn oo lii sheegay magaciisa oo caawa farmaajo iyo fili Soomaaliya ku soo dhiibay waxay soo ogaadeen ninkaas magaciisa oo ayaga la shiray oo haddana la waayay meel ka baxay oo al-shabaab u qaabilsan jaagadiisii oo asagu iloway ninkii mas'uulka ah ee la hadlayay al-shabaab kala jiraayeen oo aan u qaabilsanaa dhinaca hubka iyo waxa beetay ay soo barteen jaagadiisii oo iloway bay waxay ka heleen rag siyaasiyiin oo hawiye oo hadda al-shabaab la xirtay in la dilo bay magaciisa ugu qornaayeen ninka jaagadiis markay arkeenna way ka kala carareen fili Soomaaliya galeen mudaharaadkii biri la sheegayna biri mudaharaad ma dhici doono nimankii siyaasiyiinta maalqabeenkii ii sheeg kuwii mooryaanta inta fili Soomaaliya caaw soo galeen أنا دول محتوى جعل هاي إن إلى حاول والله وربع رادينا إن أنا سيحن ذاتك إيشو ذمية حباركو ذمية أنت نور بقى صوحي أنت نور بقى صوحي أنت ما قام حاجة يلا ولي أفكي وحاجة مصبحين مركي إيشو الدعية حبار مبهني علاء مبهني وحكر مبهني وحن أمنا إن يتحسوجيت كبدن ما دام ولي هبي سوجيت كونوا درسين تون فرسان ولي مسوجيت وركاس برادينا ما أنت تاب بحي وبدأ هذه ودمعنا الله في كسر جراح سراي كون يسكورين تين من مجال كتير محنقو عصدي إني نقول من بدأ سينا جوكتان راحة صارتان بيها صارتان لأن أنا لو سكحنا سنة محاسر هاي يسكورين ذاتك بدكم في عنا أدبنا واحد معي أسبوع صوص عن يجين دونا ميلاد الحيسة إن هالكاس يجلسوا عند دوتان نمانكاس حدان سكا قبلين مقدشوا حدا دليل دقيق صد محا أوفك السي واحد يعني دولة سومالي كل جرتو أنا دولة سومالي أمشي قية كعيرة أميه أفعيل أميه إن العاقل ما سيسو حر أيانا هاي وركا أنا الصهيلة حرب أنا وهاي إنا جود بيو صدق عنين الرباعتي بحر سامي وقابس من مقتشل قرحي من درجة سفرية من مقتشل فرية من السعودية كله وأضيع جوين بترول كردن جاس كم مقتشل كان عسل إسكال ده كم مقتشل ما أنت تشوفه ويا قنان مجلسة ده كأوش شقي ويا قنان كينيا يعني إيش يعني نيروبي ده الصومالي ده كم كجدا طبعا نيك الرباعتها ninka u jooga baalkii xamar waa ninka nisheegay ninka hargeysa u jooga ninka nisheegay dadka qarxiyo waa saddexan ee u qaabilsan Somaliland ma ahan in Somaliland kaliya ay qarxiso boqol af bay leedahay al-shabaab markaa maqashaan muqdisho dad u dhashay oo mooryaana ku jira oo dadkooda qarxiya oo dadkooda dila oo caawa waxay soo buuxiyaan gaari weyn oo lagu qabtay muqdisho oo qarax loo waday inuu qarax dhaco si banaanbaxda biri dhacay oo xalaal u noqdo ولي الدولة محمد قبل سواء كان عاو قرح وضعي لوجه هرتقو وقرح أقول عاول ديارنا وحها بنبحث بري إنه حلال كديقو يعني ذلك قبيلات بوحدو أنا قبيلات ويجمع مرتاعي رنتا كهلا قف كدو موريان يهي رنتا الله شيء ضد بحي يسوي يدير يوتيوب كجرة موريان تدارود مع كهذا شيء مرة بينا كذا ضد وحي لسه كدر صنيع موريان دارودا مجرو موريان دارودا أما أنت كهل كرنا مجرو موريان كدارود كأما أنت ليه كرنا موريان بيجاي دقت السود بقوله ما نيجي أسكهلا ما نيجي ده كان ده موريان كدق بكهل لنا ما أنت دق بكم بيه موريان دارودا مجرو دارود كي قف كسود الحل ما هيو إن مامون ما هيسته ميل مجرو ما عملها هوية عبد قيدي بعود بتين سنتر يعني موسى يلحق يقول لي سنتر ودلك دلك سولاي ودلك دلك سوداي ودلك إلى ما أنت دلك جريه هذا الدجن موريان تساس أنا وهلا كسر جد بيش هوية شرفت له إني كده دلك موريان تدلك السنك جلنا يوم إني كده دلك كده وضع دولة فرماتشو واحد يقول مقالة 2020 إني الدور شدي عدوانين في جنبي صومالي كو قبسان دونان صومالي كو جوجي دونان قفكي ربا إنو نولاده oo noloshiisa jecel doonta ha ka dhicin dawladda dhinac ka raac
وهذا نرشة جعشاي ما أنت لما يقان قفك أصور أنت قبيل أو 19 أنا وجه هوية ودجال ما هي ميلو كحبانية لما يقان قف أو مجرو واحد كريو أكسو فرماشن أو شيء هو يديس هو يسمع لما صيه ويل كاريبا كان تنود دجال ما لما ده جوري لو ما دسو لما يقان واحد كنا شال مؤجر أيضا وشق يصلها ميل بكسو صار لها والقبيل قبيلات بريء بنابحة ودان هويو واحد ترى المقدشة النجاد كان بريب اللي لقى دعيس كم سوقات بقى أنا مدة كوهم وين إنه أنت دع بنابح لا وحل باللي قيسته المقدشة الرجمته بقى أنا قد هانا جعل لها لا بتحسن كجعل لاقيس فرماتشي وحانية بدلك أودي ديها أنا أودي دراي لاقيس بقى بنابح دعو واحد جبنا يا وجوري هوية واحد دع يا وجوري هوية واحد لمنا يا وجوري هوية ولله كبقوا اسكن حق إذا إلهي كبقدان اسكن حق بريب اللي لقى دعيسة ده كان وادد موريانا وادد توبا وادد بحل النقضي مقدس كنو مركب بنا بح دعيو دد با وحي عاو كشريان بنكي دعي انيغا انا ميل هبلا غليا لعق با داله dad baa ka faa'iisanaya dad baa ku soo dhuumanaya banaabaxa biri dhacaya al-shabaab baa ku soo dhuumanaysa oo horta in dawladda laga burburiyo ummad Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa muqdisho annaga biri waxaan noo taadu banaabax dhaco intaan muqdisho aan ka soo jeedin oo maanta deganeen inaan sidii movie-ga u daawano ku qosollo banaabaxa waxa ku dhimanaya wiil hawiye waxa lagu dhacayaa wiil hawiye intaas ku soo gabagabeynaya wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh